weligaa inta AI la sheekaystay jawaabtan oo kale ma kusoo baxday? way dhacaysaa marar badan markii AI-ga aad weydiiso su-aalo oo aad siiso context ayna fahmaynin. haddaba waxaan ku sheegayaa framework jawaabta aad u baahan tahay aad ugu heli karto AI-ga. inta badan markii AI-ga ay ku siiso jawaab qaldan, macnaheedu waxay tahay sida aad su-aasha u weydiinayso ayaa qaldan. haddaba frameworkan isticmaal, la dhaho IRE framework. waxaad ka bilaabaysaa marka koowaad action. waxaad leedahay AI-ga waxaan samee. haddii tusaale ay tahay baaritaan, waxaad leedahay make research. waxaad leedahay write. AI-ga waxaad siinaysaa wixii ay qaban lahayd action ahaan. labo, waxaad siinaysaa input. AI-ga waa container, waa qaanad weyn ay ku jiraan xogta internetka o dhan. haddii xogta general a u weydiiso, waxay ku siinaysaa jawaab general ah. si aad u hesho jawaab personalized ah oo ku anfacda, mar walba sii input. waxaa siisaa data, wax ay isticmaali karto. waxaad dhahdaa tusaale kasoo qaada waxaad siisaa tusaalayaal iyo context. mar walba oo AI-ga context aad sii karto waxa aad weydiinayso iyo sababta aad weydiinayso iyo waxa ay yihiin, mar walba oo jawaabta ay ku siinaysa AI-ga ay fiicnaanayso. saddex, waxay tahay refine. AI-ga mar walba waxaa fiican inaad role a siiso. haddii programming aad sameynayso, tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa you are senior developer. waxaad tahay developer senior ah, waxaad tahay researcher saasa. AI-ga role c. markii role aad siiso, jawaabahaas si fiican bay ku soo saaraysaa.